bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada war wixii aan idin hayna dalka gudihiisa iyo dibadiisa halkaan naga dhageysanaysaan waa raadiyo muuqaal xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa warkan waxaan la socodsiinayaa haddii ay baraali ka noqdo anigoo Sucaad Budo qodobada ugu door korona warkeena caawana waxa kamid ah shabakada wararka ee muuqaal news ayaa saako ku gashay xaaladda darbi jiifta magaalada Hargeysa shirweynaha looga hadlayo arrimaha dalka Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada London Mareykanka oo askar dheeraad ah geeyay dalkaasi Afghanistan aroos ka dhacay dalka Hindiya ayaa waxa ku dhintay 22 ruux dhageystayaal kuwaasi waa qodobadii ugu door korona warkeena caawa haatan ku soo dhawaad kuwaasi kuwa kala faahfaahsan oo aad ka maqli doontaan raadiyo muuqaal shabakada wararka ee muuqaal news ayaa saako ku gashay xaaladda darbi jiifta magaalada Hargeysa shabakada wararka ee muuqaal news oo saako ku gashay xaaladda carruurta darbi jiifka ah ee ku nool magaalada Hargeysa kadib markii aanu gaarnay goobaha ay ku sugan yihiin ayaa waxay indhaha iyagu qabanayeen carruurtoodu aad u yar tahay oo ay ka muuqato duruufo kala duwan sida hooy la'aan dhar la'aan iyo waliba cunto la'aan sidoo kale wajiyadooda waxaa ka muuqday nabarro ay noo sheegeen inay isu geysteen iyaga dhexdoodu qaar ka midana ay u geysteen bulshadu iyadoo ay sheegeen inay bulshada dhexdeeda ku qabaan takoor iyo tacadiye kala duwan ugu dambeyntii dhalinyaradani oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba waxa ay baaq u dirayaan dawladda uu galwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo hay'adaha deeqaha bixiya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada culimada iyo shacbi weynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan warbixintani waxaa si toos ah ugu gashay shabakada wararka ee muuqaal news shirweynaha looga hadlayo arrimaha dalka Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada London waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay martigelinayso dawladda Britain madaxda ka qayb gashay shirka ayaa si weyn uga hadashay xaaladda ammaanka Soomaaliya si ay sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay si buuxda ula wareegto mas'uuliyadda ammaankeeda xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay inay Soomaaliya la wareegto xorinimadeeda Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay iskaashi dhow oo ay ku aadan qaabka loo wajahayo dhismaha ciidanka qaran ee Soomaaliya Mareykanka oo askar dheeraad ah geeyay dalkaasi Afghanistan militariga Mareykanka ayaa ka baaraan degay inay 3,000 oo askari oo dheeraad ah u diraan Afghanistan si ay ula dagaalamaan Taliban mas'uuliyiinta Mareykanka waxa kale oo doonayaan awood ay ku bartilmaansan karaan mas'uuliyiinta Taliban sarkaal magaciisa aan shaacin ayaa sheegay in aanu Donald Trump ansixin qorshahan waxa kale oo laga yaabaa in dalabka ku jira codsi ah in wadamada gaashaanbuurta NATO iyo iyaguna diraan 3,000 ilaa 5,000 oo askari waxa iminka Afghanistan jooga ilaa 13,000 oo askari oo ka tirsan NATO 8,400 oo kamid ah ay ka socdaan Mareykanka dagaalka Mareykanku kula jiro Taliban ayaa waxaa si rasmi ah u dhamaaday 2014 laakiin ciidamo gaar ah oo Mareykan ah ayaa taageero u fidiyay ciidamada Afghanistan Khadra Xasan Cabdi Khadra Degan Radio Muuqaal Hargeysa aroos ka dhacay dalka Hindiya ayaa waxa ku dhintay 22 ruux ugu yaraan 22 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii ay dabaylo xoog badan ku dumisay darbi iyagoo ka qayb qaadanaya aroos ka dhacay waqooyiga Hindiya 26 kale ayaa ku dhaawacmay dhacdadaasi oo ka dhacday deegaamo ka tirsan Rajasthan 15 kamid ah dadkaasi ayaa dhaawac halis ah qaba iyagoo dadkan ay dhibaatadu soo gaadhay iyagoo darbi kaga gabanaya roob xoog badan oo duufaan la socoto qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeenii habeenimo halka naga dhageysanayseen waa shabakada muuqaal warkan waxaan la socodsiinayaa anigoo Sucaad Budo tan intaan ku kulmi doono warkeena warka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.